you're registering and turning out 1 million Muslim voters this November. It matters. Your voice is your vote. Your vote is your voice. qaday madaxweynihii ugu da'da weynaa ee soo maray dalka Marekanka ayadoona dhowr mar uu isku dayay inuu qabto xilka madaxweynenimo ee dalka Marekanka waxaana xiliyadaasi mar kamid ah lagu qabtay inuu koobiyay khudbad hore uu u jeediyay gudoomiyihii xisbiga shaqaalaha ee dalka Ingiriiska taas oo fadeexad ku noqotay waxaana taas ay keentay inuu ka haro doorashadii madaxweynenimo ee dalka Marekanka si weyn ayaa baraha bulshada laga hadalhayaa doorashada ka dhacday Marekanka iyo madaxweynaha cusub ee la doortay ayadoona dadka hadalhaya ay qayb ka yihiin dadka Soomaaliyeed hadaba adiga madaxweynaha cusub ee Marekanka ee la doortay ayaa taageersaneed ama Trump inuu soo noqdo inkastoo Trump wali uu diidan yahay doorashada in laga guuleystay kulanti wacan oo wanaagsan aqyaarta hawada aan ku saaxiibnay oo idilkiinba meel walba ay joogtaan waxaan leenahay waqtiga ay idin wacnaado dhamaantiinba muuqaalka la gareeya cid walba muuqaalka la gareeyay waxaan Allah subhanahu wa ta'ala aan kaga baryeynaa umuure leeyin ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu sahla ilaahay subhanahu wa ta'ala awlaadda uu barakeeya inta awlaaddoonkaana ilaahay awlaad baari hasi inta guurdoonkaana guur wanaagsan iyo mustaqbal wanaagsan ee baweyna hasi qof walba muuqaalka sheerta ku qabta la gareeyana waxaan rabbi subhanahu wa ta'ala aan kaga baryeynaa maal adduunyo سفلين إنه إلهي سبحانه وتعالى وسيا دم بيجود والد كودنا يبوا لا فرب سبحانه وتعالى وكعز ما جنة الفردوس الأعلى حاسد كوعلنا أيوة من شر حاسد إذا حسد الحاسد لا يفرح بإذن الله الكريم وعقودا بين يهوجي قصاره وعرب سبحانه وتعالى لما أنت عن كما نقلنا إيش حاسدين أنت وعن الله سبحانه وتعالى وديسنا أنت حنوسا إنه إلهي حنونك وكدر قاعده ومد الصوماليين مر بيجوكتنا رب سبحانه وتعالى قرقار كيسا nasrigiisa ee baweynaha siiyo doorashada Marekanka ayaa la soo gabagabeeyay waxaana madaxweynaha dalka Marekanka loo doortay siyaasi rugcada oo muddo ku soo guda jiray siyaasadda dalka Marekanka John Bidden wuxuu muddo 36 sano uu ahaa senator ka tirsan senatarada dalka Marekanka waxaana muddo 8 sano sidoo kale uu la shaqeynayay madaxweynihii hore ee dalka Marekanka oo ku xigeen uu ahaa Barack Obama Bidden ayaa da'diisa lagu sheegay inay jirto 28 sano waxaana uu ka baxay kuliyadda xagga sharciga ah waxaana xilliga uu dhameystay kuliyadda xagga sharciga ah loo qaatay inuu ka qayb qaato ciidamada qalabka sida ee Marekanka ayadoona la sheegay in loo dirrabay dalka Vietnam laakiin waxaa la sheegay in la marsiyay xaalad caafimaad ayadoona xaaladaas caafimaad la sheegay in uusan u surtoobin in dalkaasi loo diro maadaama uu qabay cudurka ama xanuunka neefta John Bidden ayaa waxaa soo martay dhacdo aad u xanuun badan kadib markii shil gaari ay ku dhimatay haweeneydii ugu horeysay uu guursado waxaana shilkaasi sidoo kale ku dhimatay gabar uu dhalay ayadoona labadiisa wiil ay ku dhaawacmeen shilka gaari taas oo muruga ku reebtay madaxweynaha cusub ee dalka Marekanka John Bidden wiilkiisa weyn oo kamid ah dadka shilkaasi ka badbaaday oo dhaawacana uu ka soo gaaray ayaa 2015 u geeriyooday cudurka kansarka madaxweynaha cusub ee dalka Marekanka ayaa dhowr mar wuxuu isku dayay inuu qabto xilka madaxweynenimo ee dalka Marekanka waxaana waqtigii ugu horeysay ee ahayd 1988 ayadoona la sheegay in waqtigaasi lagu qabtay khudbad uu soo koobiyay uuna ka soo koobiyay gudoomiyihii xisbiga shaqaalaha ee dalka Ingiriiska arintaas oo fadeexad weyn ku noqotay John Bidden isla markaana la sheegay in khudbadaasi uu soo xaday waxaana taas ay keentay in John xilligaasi uu ka haro dartankii doorashada madaxweynenimo ee dalka Marekanka waxaana 2008 sidoo kale uu isku soo taagay inuu qabto xilka madaxweynenimo ee dalka Marekanka laakiin xisbigooda waxay soo sharaxdeen madaxweynaha dalka Marekanka Barack waa madaxweynihii xilligaasi ee dalka Marekanka doorashada ku guuleystay Barack Obama taas oo keentay in madaxweyne ku xigeen uu noqdo John ayaa siyaasi aad waay arag u ah isla markaana muddo ku guda jiray siyaasadda dalka Marekanka waxaana siyaasiyiinta falanqeeya arrimaha siyaasadda caalamka ay sheegayaan inuu yahay siyaasi qunyar socod ah isla markaana aad ugu fiirsaday fargelinta lagu sameeyo wadamada kale ay soo isla markaasi dhaxdhaxaad ka ahaa arrimo badan oo ka dhacay dalal kale oo ka baxsan dalka Marekanka dhanka arrimaha bulshada markaan eegno John wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay inuu si weyn u jecel yahay cunista jalaatada wuxuuna tilmaamay in maalintii 2 mar uu cuno jalaatada
sida uu ku sheegay waraysi uu bixiyey waxaana waraysigaasi uu sidoo kale uu ku sheegay inuusan asiga sigaarka uusan cabin laakiin ilkihiisa ay yihiin ilko waa ilko aad ilkihiisa ay yihiin ilka xamili kara cunista jalaatada maalintiina dhowr mar uu cuno jalaatada sida uu sheegay madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka Mr. John Bidden sidoo kale wuxuu dhaqdaa xayawaanka loo yaqaan eyga waxaana uu leeyahay 2 ey kaas oo la sheegay mid ka mid ah in xilli kol hore ah uu soo iibsaday waa xilliyadii 1900 aan raadey waa 1972 ayaa la sheegay mid ka mid ah eeyahaasi inuu soo iibsaday waxaana hadda u joogta 2 ey uu xanaanaystaa madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka madaxweynahan 28 sano jirka ah ee loo doortay inuu noqdo madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa si weyn shacabka dalka Mareykanka ku dhaqan ee u soo dhaweeyeen ayadoo sidoo kale bulshada caalamka inteeda kalena ay soo dhaweeyeen madaxweynahan cusub maadaama si weyn loo dhaleeceynayay madaxweynihii Mareykanka Trump kaas oo la sheegay in siyaasadda adduunka meelo badan oo kamid ah jahwareer uu ku riday midowga Yurub iyo waliba wadamo kale oo adduunka ayaa soo dhaweeyay madaxweynaha cusub John Bidden ayadoona isla markaasi ay la sheegay inuu yahay siyaasi qunyar socda isla markaana waaye arag u ah siyaasadda adduunka waqtigan ka jirta meelo badan oo kamid ah dalka Mareykanka ayaa waxa ka socda banaanbaxyo waaweyn oo lagu taageerayo madaxweynaha cusub inkastoo Trump uu diiday guusha John isla markaana uu sheegay in wali natiijada doorashada aan lagu dhawaaqin asigana uu guuleystay musuqmaasuqna uu ka jiro qaabka codadka loo tiriyay waa sida uu ku doodayo madaxweynihii laga guuleystay ee Mareykanka Trump. If I have the honor of being president, I will end the Muslim ban on day one. Day one. And I'm here today to ask you to join me in a fight to rip this poison from our government root and stem, or as the famous case said, root and branch, starting by making Donald Trump a one-term president this November. But I'm not just asking for your support because the alternative is unthinkable. I want to earn your vote, not just because he's not worthy of being president. I want to work in partnership with you. Make sure your voices are included in the decision-making process as we work to rebuild our nation. We can't just build back to where we were before Donald Trump took office. We have to build back better.